بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان dadweynaha reer Kalabayd si gaar ah waxaan u hambalyeeynaa ardayda qiimaha badan ee degmada u soo baxday waxaan leeyahay hambaliyo dhamaantiin waxaan rajaynayaa guuleynta aad gaadheen in ka fara badan waxaan leeyahay kulay ardayda reer Kalabayd dhalinyaro iyo maamooyinba way leeyihiin waxaan leeyahay dhamaantiin kulay xirfado waxaad barateen runtii deegaankana looga baahnaa aadna idin anfacaya waxaan leeyahay hambaliyo horeyna u sii wada horumarkiina insha Allah حمل يا أرضيدا ودفعتي لبعض كبحضة دفعتي هرا وحنو ملينا يا أرضي بدنا وكل يقلب تركو هرا يقدر ما يسوي شوكته مركا دفعت ما أنتنا وحويا بقولي أفرتني يكو أرضي تضبعتني يكو وحي كبحضي قيبت حرفة حناها أما علان ساركا تضبعتنا وحي كبحضي قيبت النشقضين تدركا أما كريسكا مركا وحنا يا دمانتين قولي استهرنا وسي وذا إن شاء الله حرفة دينا أنا قاكو الله يافكا معلمينتا maadaama macallimadii kalena kala weynoo joogtaa marka waxaan ku hadlayaa afka macallimada xinaha insha Allah marka waxaan leeyahay dhamaantiin guuleysta intii ka badana xeelatay waa soo wadeedina dadaalkina idinkan bay ku hadhay marka dhamaantiin waxaan leeyahay hambali insha Allah لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إله سبحانه وتعالى أي مهد لما أنت دسقناتي سكوكن كان حفلة قروح بدن قلين شبينتا لبدا دفع حدود إيه كلاء داركرينتا إعلان صار كاد بمهتسينين marka koobaad ardayda waxaan leeyahay hambaliyo hore u socda xalay gabadh wax baratay waa bulsho wax baratay halkiina ka sii wada waxbarashadiina hore u sii socda xirfadihiina aadna waa idinku hambalyeynaya inta ka bacdi waxaan aad ugu hambalyeynaya hay'adda keer ee ka dambeysay xirfadan iyo waxbarashadan inta ka bacdi macallimaantii baan u hambalyeynaya macallimadii dharkarinta iyo macallimadii cilaanka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin gaar ahaan waxaan ka soo jeedaa qaybta cilaanka macallimadeeda aad baan ugu hambalyeynaya Farduus Axmed Maxamed hambaliyaan leeyahay dhammaan waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha xafladan ka dhacaysa degmada Kalabayd maanta ay taariikhdu tahay 14kii bishii 9aad 2025 waxaan bogaadinayaa xirfadatan hablaha degmada ay barteen haday tahay cilaan saarka haday tahay dharka oo aan malaynayo in la buluugeeyo ama la rinjiyeeyo iyo wixii kale xirfadaba dhammaantiin waa waxay noo soo kordhay oo horumar gabdhaha u soo kordhay wixii u soo kordhaa qaybaha bulshadana degmada oo dhan bay u soo kordheen marka waanu bogaadinaynaa haddii alla idmo waxa iska leh maanta inaynu xirfadaha iyo xafladaha aynu qabsanno nabadgelyada ilaahayna siiyay baa iska leh waa dareemi karaysaan in badan baan haysan nabadgelyada ama innagaaba dhowr sano ka hor aan haysan ilaah baynu ugu xamdinaqaynaa nabadgelyada uu ilaahay inoogu bedelay horumarka iyo xorriyadda waxaa jirtay maraynan awoodin calanka halkan ku sawirana naqshadaysan inaan isku sawirro ama aynu isaga laftigiisa u dabaaldegno ilaahay ba xorriyadda ayna siiyay waxaan kula dardaarmayaa bulshada in la isku wacyigeliyo midnimada iyadaynu wax ku nahay haddii alla idmo iyadaynu halka ku soo gaadhnay hablaha halkan kale waxa ku qoran 76 laakiin 71 baa la sheegay waan idin bogaadinayaa inta kalena gaarsiiya haddii alla idmo qofka xirfadda markuu barto waa wax isaga la socdo oo meeshuu tagaba uu ku shaqaysan karo marka dhammaantiin khayr baan idin rajaynayaa inta baratay inta macallimiintaaba waxaan idin leeyahay khayr Allah idin siiyo halka horumarka ka sii wada fadan quraxda badan ee aad loo saagaashimay ugu horeeyay gudoomiye ku-xigeenka odayaasha xildhibaanadii hore iyo odayaasha ardadana gooni baan u salaamayaa gabdhahan quruxda badan ee halkan fadhiya ee deegaanka u dhashay aad iyo aad baan idin salaamayaa salaanta islaamka ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi walaalayaal iyo ilmada reeyanaal waa ka soo baxdeen waajibkii leen diray ee waxbarashada ahaa ee qaybaha kala duwan ahaa waxa la waxbarasho la'aan waa iftiin la'aan qofku hadduu wax barto meel alla meesha ku doono ka qayb geliyaa waxa weeyaan gurigiisu ka shaqaysanayaa carruurtiisu ka shaqaysanayaa dalku ka shaqaysanayaa beeshooduna ka shaqaysanayaa waxa weeyaan wax badan oo qofkan bini'aadmiga kale aan wax aqoon uusan qabsan buu isku qabsanayaa iftiin badan baa u baxaya waxa weeyaan aqli badan baa u baxaya waxa weeyaan wuxuu ka qayb gelayaa adduunweynuhu ka qayb gelayaa meeshuu doono qofka hadduu wax yaqaano hadduusan wax aqoonna waa qof indhala
oo waxa la wax qabsanaya ma jiro marka aad iyo aad baan ku hambaliyeenay ininka iyo hay'adii waxna soo bartay iyo deegaanka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka iyo dadkii maamulaha ahaa iyo hay'adii waxna soo bartay waxa weeye halkaas wadaan leenahay waad ku mahadsantihiin waajibna ka soo baxdeen qof kasta oo wax isku daya oo yool leh ama hiigsi leh oo gaadha inuu hiigsada inuu meel gaadho wuu gaadhaa haddii uu samir iyo tadawur horumar la yimaado yoolkiisa waa gaadhaa marka waxaan filayaa inaad gaadheen yoolkiinnii ah waxbarashadaas aad maanta u xafladaynaysaan aad iyo aad baan idinku hambalyaynaynaa waxbarashaduna sii wada marba midba mid ku sii dara xirfadba xirfad ku sii dara markaad xirfadaha badisaan waxaa imaanaysa inaydan shaqo waayin oo aad mar walba shaqo heshaan laakiin haddii xirfadaadu mid kaliya noqoto waxa laga yaabaa de xirfadaadu shaqada uun jaaniska inaad sugto marka idinka iyo macallimiintii wax idin dhigayay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa iyo hay'adiiba aad baan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay ka sii wada hawsha halka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما سلام يا حبلها reer Karabayd runtii xafladan qiimaha iyo qaayaha leh soo amray qalin jabinaya maanta labada qoloba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad dhammaan waalidiinta iyo ehelka kale dadka kale iyagana waa sidoo kale waa salaamaya hay'adda lafteeda waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay ardayda inaad si maaragtay u sii kordhisaan marba in waxbarashada sii kordhisaan inta waxbarashada kuma dhamaato maalinba waa heer baa la gaadhaa marka dhammaantiin waan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh iyo qiimaha leh aad maaragtay waxbarashada u wadaan siina wadaan leeyahay waana idin salaamay dhammaantiin baa mahad iska leh xafladan quruxda badan waan mahadnaqayaa sida quruxda badan loo soo agaasimay hay'adda keer baan mahadnaqayaa aad iyo aad bay u mahadsan tahay qayb weyn bay ka qaadatay degmada Kalabayd dacfadana waa dacfadii labaad waxay u sameysay haweenka shaqo abuur sharaf badan anigu waxaan ahay ardaydii ka qalin jabisay dacfadii hore waxaan ahaa qoladii ka qalin jabisay dhar karinta si qurux badan ayay ii anfacday dacfadii horena ay u anfacday shaqo abuurkii iyo macallimiintii iyo macnaheedu hay'addu ay soo saareen qoladana waxaan u rajaynayaa sida anaga noo anfacdo inay u anfacdo hay'adda keer baan mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadnaqayaa waxaan leeyahay hambaliyo inkana waan inii hambalyeynaya ardaydan quruxda badan ee maanta halkan ka qalin jabinaysa labada dacfadooda waxaan leeyahay guuleysta dadaalkii iyo waqtigii iyo juhdigii idinku bixiyay inaad ka mid dhalisaan oo aad halkii ka sii wadaan dadkii wax soo barayna intifaacay u noqoto baan inii rajaynayaa guuleystaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba السلام عليكم أولا أرضيدا iyo macallimiinta iyo hawlwadeenada halkan jooga keer iyo ka soo qayb galayaasha qof kasta mas'uul ah waxaan ku salaamayaa mansibkiisa iyo magaciisa waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaan idinka mahad celinayaa hawsha fiican aad soo qabateen ilaa saaka aad u fadhideen maanta waxaan iskugu nimid ardaydan ka qalin jabinaysa xirfadahan ay bixiso hay'adda Care International qaybteeda protectionka waxaan u maleynayaa Kalabayd waa dafcadii labaad ee ka qalin jabisa tira aad ku dhow labada goorba marka la isku daro 300 arday haddayna korba u dhaafaynin run ahaantii waxaan u aragnaa inay deegaanka u tahay waxtar inkastoo wax intaa ka badan ay fiicnayd laakiin inta aan hadda qabanay waxaan isleenahay baahiyihii ka jiray waliba dumarka iyo magaranaysaa dadka nugulka waxay u noqonaysaa waxtar fiican waayo qofku markuu wax barto wuxuun baa u bilaaban wuu ku shaqaysan karaa noloshiisa ku dabari karaa xitaa hadduusan maxaan ku radaa u baahnayn oo iska faakahaysanayo isaga isku qurxin karaa waxa weeye gabadha markay xinihii barato gurigeedii bay maxaan ku radaa ku qurxisanaysaa iyadii baa isku qurxinaysaa waa xirfadda magaranaysaa ay xitaa wax kale haddaysan ku qabsanin iyada ka muuqanaysa dhar karintii oo kale iyaduna waa xirfad aad iyo aad muhiim ah deegaankana run ahaantii shortage fara badan ama yaraan fara badan baa ka jirtay markii la bilaabayay alxamdulilah haddartoole arday aad u fara badan baa soo baxay waxaan isleenahay baahiyihii badnaa ee loo qabay xirfadda
waa la daboolay waxaa dhinac socotay xirfadda makeupka ama weji dhiska oo ay badanaaba israacaan xirfadda magaranaysa cilaansaarka wayna kala hadhin insha Allah hay'adda waxa ka go'an inay wax qabad fiican muujiso wixii kale ay ku dari kartay karaankeedana ay ku darto bulshada kala baydhna way soo dhaweynaysaa si fiican bayna noola shaqeeyaan wana mahadsantihiin insha Allah ardaydana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambaliyo maanta meel fiican baad soo gaadheen halka ka sii wada insha Allah idinkoo business women oo intan ka sii balaaran inaan xaflado kale isku aragno baan idin rajaynaynaa insha Allah guntiga gabagabadii baa la joogaa maanta xafladeen meel wacan bay noo soo martay aad baan uga mahadcelinaa dadka ka soo qaybgalayaasha iyo howlwadeennada keer halkan jooga nasteexo ugu horeyso iyo tiimkeeda iyo macallimiintaba xirfadan soo saaray waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وايد السلام يا أرضيدا لبدا دعفدودا هايدا كير انترناشنال حلبان وري محمد علي هيان odayaasha macallimiinta dhammaantiin aad baan idin salaamaya waa salaamantiin anigu wax badan ka hadli maayo dee wixii had intii hore la yidhi ardayda waan u hambalyeynayaa iyadoo ay maanta dacfadii labaad ay qalin jabinayso kuwii hore ee qalin jabayna maasha Allah la intifaacsado degmadu ay intifaacsatay insha Allah idinkuna waxaan idin rajaynayaa noqotaan kuwii dadka bulshada dhan baad mutashaan inta magaalada joogta waa dad aad u fara badan intiina waxaa la rabaa inaad dadkii waxna bartaan ودل ما أنت معلمين باتين دينكي وحلا لدين برا ولد معلمين سين نقطان هبليه نبرتان هو يمكن برتان كل شقة يستان لقى فايدة سيدي أرضي ده هراك عليه أقل نشبيسي إن شاء الله وحين نرجعني إن شاء الله نقطان أرضي أن لقوا قصارنا نقطان أرضي لقوا فايدة وهي حرفضها وحرفضها ميم كوا الأنصارك يقدر كرنتا وحياوها كلية قف وكل لعبك راح يفضها ويا ذا جورج هذا شوك تعلانك ويكون شقة يسان كرتا hooyada iyadoo gurigeedii carruurteeda haysata bay dharkii karin kartaa oo ganacsigeeda guriga dhexdiisa uga bilaabmi kara magaalada geyn kartaa magaalooyinka la geyn kartaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaad noqotaan guruubo shirkad ay inaad samaystaan qolada dharka oo aad iidoo kale markay soo dhow yihiin aad intaad karisaan dharkii oo diyaara inaad magaalo walba geysaan oo aad meel walba laydin ka soo dalbado insha Allah baan rajaynayaa oo aad noqotaan dad horumarka sii ballaariya